magaalada Boosaaso ayaa iyagana soo dhaweeyay Madax Axmed Cabdulla Diyaana ay soo sharaxdo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana hadalladii ka tahay salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waxaa la yidhahdaa Xaawo Axmed Shire Madax Diyaano sharaxaadda ama dhawaaq ay ku dhawaaqday inay masaajidda aqalka sare iyo xildhibaannimada Soomaaliya aad iyo aad ayaan ugu farxay because Muna waa qof haween oo wax baratay oo macnaha leh aqoon durugsan u leh xaaladaha Soomaaliya aad u daristay inta maqneed oo dhan wariyada iyo macnaha adduunshigeeda uu Soomaaliya joogay diwaan international oo Soomaaliya oo Soomaalinimada ay ku weyn tahay hadday kasoo tagtana dumarka iyo dhallaanka dhibaatada ay saamaysay muddada dheer oo macnaha u ah turjubaan ama baashita u noqon karta wax lagu farxana weyn waanu soo dhaweynaynaa hadday guulaysato maxaa istaada waxbay ka qaban kartaa والله دي جوزة المرة أنا وحنا عاملينها ليش اللي بعتقد ودك واحد ركابي وريك سكاسي ومان باور مقرتي هدي الدول كلها في عند جوب الجماعة اللي جوب لها أو يوجد واحدة لها جماعة الصومالي تسمع عنها المرة وحكمت هاي دول كقف دول الصوماليات أذكر روتا عن كبقني مركب محبين بيكبدل كستاد بعتقد على هذه الصومالي اللي هي لا تقصد